haddaba marka aad ku sugan tahay magaalada Boorame ee ah caasimadda labaad ee Somaliland ahna xarunta gobolka Awdal waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ay dadku ugu diyaar garoobayaan munaasabadda Ciid al-Fidri oo kamid ah saddexda ciidood ee ay muslimiintu sida gaarka ah u leeyihiin isla markaasina ay dabaaldegaan iyadoo aynu ku jirno bishii barakeysayd ee Ramadaan ayaa waxaad ku arkaysaan suuqyada magaalada Boorame dadweynaha oo aad u camiray isla markaasina ugu jira tartan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen Ciid al-Fidrida waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorame oo iyagu ku sugan suuqyada iyo goobaha wax lagu kala iibsado suuqyada iyo goobaha ay ka socoto kala iibsiga munaasabadda Ciid al-Fidrida qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boorame ayaa iyagu cabiraya dareenkooda ku aadan munaasabadda Ciid al-Fidrida waxaana ay yiraahdeen Abdulqani Ahmed Maxamuud Abdulqani ka waran ciida iyo sidalka jiisa ka war wixii ka war hooyo iyo abo soo kumibineen sidorta fiicantahay bismillaahi wa salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam waxaan ka hadlaynaa maanta muhiimadda maqaamu lahaa maqaal baa lay maalin kasta waqti kasta moosin buu leeyahay dadka dhibaataysan in wax la taro dadka ma garanaysaa waynu iidaynaa moosinkii ciidda aynagu soo socda carruurteenna sidaynu u iidsiinayno kuwa aan haysan ee sixir bararku uu ku kacay inaynu iidsiinno ayaa aan idin farayaa bulshada dhammaanteed wixii aynu ku tari karno aynu ku tarno arrintaasina waxay qusaysaa la weydiinayaa maalinta ma garanaysaa la xisaabinayo mas-uuliyadda dadka qaadaya dawladda u sheeganaya dawladda ah ayaa mas-uuliyaddaana la weydiinayaa inay dadka sixir bararka ka jebiyaan ganacsatadan kor isaga socotee miskiin baa miska la furo in lagala hadlaa loo baahan yahay in malba meel kale la isku qaado meel kale la isku taaro looma baahna waa in meesha sixir bararku ka imanaya la taabta markaasuu waddanku degayaa markaa waxaan odhan lahaa sixir bararkii hoos buu degay dadkiina ka dejiya maciishadii way kaceen sixir bararkan iidda waxa la kiciyey maryihii baa la kiciyey waxa la kiciyey qalanqiishii carruurta waxa la kiciyey wax wal oo maciishado la iibsan lahaa waa la kiciyey sidoo kale waxa la kiciyey waxaan odhan lahaa dadku waa iska danyar dadka dad aan helayn baa ku jira dad aan ciidayn baa ku jira ciidda ha la qaybsadaan dadku ha laga soo dejiyo sixir bararkan iyo waxaynu u diyaar garoobaynaa iyadana maalmihii ciidda waynu leenahay kulli caam wa antum bil khayr leenahay dadkana waxaynu leenahay maalmaha si weyn ha loogu diyaar garoobo runtii magaaladana dee waa aragtaan u diyaar garowga maalmaha ciidda sida uu socdo waa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq weyn oo runtii caasimaddii labaad ka socdo maanta waa arkaysaan caasimaduna dee kolley way ka duwan yihiin magaalooyinka kale hargeysoon iyadana runtii aad iyadana looga dareemayo oo ah caasimaddii koowaad caasimaddii labaadna aad baa looga dareemayaa maalmaha dhaqdhaqaaqa iyo siday ummaddu da wax u kala iibsanayaan aad iyo aad baan idin leeyahay Ramadaan Kariim iyo ciid wanaagsan inuu diyaar garoobayno oo ah maalmihii ugu khayrka badnaa ma sha Allah hadda waxaan ugu nimay dad aad u qurux badan oo aad u wanaagsan u leh oo aad aan u dhacnay oo carruurtayda aan ku qanacnay intii wacan baan ugu faraxnay marka aan halkan ka helay si kastaba ha ahaatee sanadkan ayaa waxaa ka jira magaalada Boorame iyo guud ahaan Somaliland sixir barar aad cirka iskugu shareeray kaasi oo ay dareemeen bulshada ku dhaqan magaalada Boorame waxaana suuqyada laga dareemayaa sixir bararkaasi Maxamed Cabdilaahi Dabshid Kalsan TV magaalada Boorame imikana waxaan u wareejinaynaa wariyeena ku sugan magaalada Burco